السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. caawa ay bishu tahay 14 maaj ahna habeen isniina oo talaada soo galayso idaacadeena fiidnimo ayaa idinku soo maqan oo weliba uu ka dambeeyo barnaamijkii Soomaalinimo oo maalin walba oo isniin ah aanu ku ballansanayn inaan idin soo gudbino balse marka hore ku soo dhawaada warkii. kumanaan rakaaba oo doonaya inay diyaarada ka raacaan garoonka diyaaradaha ee Birmingham ayaa duulimaadyadooda dib uga dhacay kadib markii arrini ku timid habsamay u socoshada qaybaha dhoofka ee garoonka. Arrintan ayaa dhacday markii ay isku xayirmeen rarkii ama boorsooyinkii dadku siteen iyo meelmarintooda. dhacdadan oo markii dambe la xaliyay ayaa keentay in rakaabka safaf dhaadheer ay ku daahaan qaar badanna waxa ay ka baqeenba inay seegaan duulimaadyadooda. mudane hore uga tirsanaa baarlamanka waddankan Britain kana soo jeeda magaalada Birmingham xaafadda Yardley la yiraahdo ayaa bilaabay olole uu ku dalbanayo in dowladda Britain ay kala cadayso da'da rasmiga ah ee carruurta kaligood guriga looga tagi karo. 500 oo waalidiin ah ayaa sanadkii tagay ee 2015 oo qoran la xiray kuwaasoo kulligoodba eebsaday kiisas la xiriira inay carruurtii ay dhaleen guryaha uga tageen iyadoo aanay la joogin cid mas'uula oo xanaanaysa. waalidiintan ayaa falalkan dartood maxkamada lagu geeyo laguna xukumay ciqaab xabsiyeed. sidaas oo ay tahayna ma jirto da' go'an oo laysku raacsan yahay oo sharci ahaan u degsan waddankan Britain oo oggolaanaysa carruurta da'da looga tagi karo guryaha kaligood iyo kuwa aan looga tagi karin. mudanahan oo lagu magacaabo Jane Hannin ayaa hore wuxuu uga tirsanaa xisbiga Liberal Democrat ama Lib Dem ee xaafadda Yardley waxaana uu ku doodayaa dowladdu inay u fasaxday waalidiinta inay ku cabiraan markay ilmahooda ka tagayaan kaligood in ilmuhu uu leeyahay garaad la eg amaba ku filan oo uu khatarta isaga ilaalin karo iyo in kale. laakiin haddana waxa uu sheegay intaasi iminka ay tahay wax kama jiraan kolba haddii boolisku ay awood u leeyihiin inay xiraan ciddii ay ku arkaan amaba ku helaan inay ka tagto ilmaheeda kaligood iyagoo guriga jooga. waalidiinta sanadkii dhawaan la xiray ayaa badanaa waxaa loo xiray inay guriga kaga tageen ilmo da'doodu ka yartahay 10 jirka waxaase ku jira qaar ayagana loo xiray carruurtooda oo 15 jir ah oo ay ka tageen darteed. canshuurta dowladda hoose ee guryaha laga qaado ee council taxka loo yaqaano ee dadyowga degan goobaha ka bannaanka ah magaalada London ee caasimadda waddankan Britain ayaa korodhay ilaa iyo 4%. tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii George Osborne oo ah mas'uulka waddankan Britain u qaabilsan maaliyadda iyo miisaaniyadda waddanka uu isbeddel badan ka soo saaray dhinacyada lacagaha dowladda dhexe ay ku kabto hay-adaha dawliga ah iyo kuwa kaleba. degmooyinka magaalada London ayaase iyagu qaaday tallaabo tan ka duwan taasoo ay ku joojinayaan amaba ku fariisinayaan korarka canshuuraha dowladda hoose ee guryaha laga qaado ee sanadada 2016 iyo 2017. dalka Turkiga ayaa weerar ku qaaday jabhadda Kurdishu ay leeyihiin ee PKK magaceeda loo soo gaabiyo kadib markii weeraro bambaano lagu dilay shalayto ugu yaraan 37 qof. bambadan ayaa bas rakaab lagu weeraray waxaana lagu tuhmayaa in ay sidatay gabar ka tirsan jabhadda PKK magaalada Ankara ee waddanka Turkiga. bandow ayaa lagu soo rogay 3 magaalo oo ku yaala koonfur bari Turkiga halka diyaaradaha dagaalka ee Turkigana ay weeraro dhinaca cirka ah ku qaadeen fariisimo ay leeyihiin jabhadda PKK oo ku yaala gobolka Kurdistan ee dalka Ciraaq. dalka Ivory Coast ayaa adkeeyay ammaanka waddanka kadib markii weeraro shalay ka dhaceen dalkaasi. dowladda Ivory Coast waxa ay sheegaysaa inay ku tallaabsatay adkeynta amniga ee iskuulada, hoteelada iyo xuduudaha waddanka kadib markii weerar shalay lagu qaaday goob loo dalxiis tago oo xeebta ku taalla lagu dilay 21 qof. madaxweynaha dalkaasi Alassane Ouattara ayaa booqday goobta la weeraray oo 40 kiiloomitir u jirta magaalada caasimadda ganacsiga ah ee Abidjan. xiriirka caalamiga ah ee kubadda cagta ee FIFA ayaa xanibaad ku soo rogay 3 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan saraakiisha xiriirka kubadda cagta ee dalka South Africa. Leslie Sadiba oo ahaa madaxa xiriirka kubadda cagta ee South Africa ayaa muddo 5 sannadood laga joojiyay inuu ku lug yeesho
howlaha kubadda cagta waxaana weliba loogu daray ganaax dhan 20,000 oo faranka Swiiska ah oo u dhigma 15,100 pound oo lacagta waddankan Britain. laba garsoore oo iyagana ka kala tirsan xiriirka kubadda cagta ee South Africa oo la kala yiraahdo Steve Gulder iyo Adel Karelse ayaa iyagana la duldhigay xanibaad ku kooban 2 sannadood. FIFA ayaa waxaa ku soo furantay badweyn sidata mowjado fadeexooyin musuqmaasuq la xiriira oo isdaba jooga taasoo xitaa uu xilkii shaqadiisa ku waayay hogaankii ugu sarreeya ee FIFA Sepp Blatter. midowga Yurub ayaa ka bilaabaya Soomaaliya 9 mashruuc oo lagu taageerayo howlaha bulshada rayidka ah iyo xuquuqda aadanaha. wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya ayaa kala shaqayn doonta midowga Yurub 9 mashruuc oo ku kacayso adduun dhan 8 milyan oo euro. Soomaaliya ayaa sanad kastaba adduunku waxa uu ugu deeqaa balaayiin dollar balse waxaa taa ka daba yimaada had walbaba warbixino tibaaxaya in lacagtaasi si qaldan lagu lunsaday oo ay dad jeebkii gashay. warkii aanu ku talagalnay caawana waa naga intaa markana u diyaar garooba barnaamijka qaybihiisii kale. barnaamijka Soomaalinimo oo habeen walba oo Isniin ah aad dhageysan doontaan warka kadib ayaa iminkana inagu soo maqan. barnaamijka toddobaadkan waxaan ku waraystay Axmed Shire oo ah siyaasi Soomaaliyeed wax badanna qurbaha ku noolaa haddana degan magaalada London. Axmed waxa uu ka hadlayaa Soomaalinimada waxa ay ka dhigan tahay isaga khibradiisii waxyaabihii uu la kulmay intii uu ku noolaa qurbaha iyo halka dadka qurba joogta ah iyo guud ahaan Soomaalidaba ay kala marayaan wadaniyada iyo dhalyada Soomaalinimada iyo sida ay iyagu u arkaan ama ka aaminsan yihiin. aaminay Soomaalinimadu waxay ka dhigan tahay jiritaanka nolosha, jiritaanka sharafta, jiritaanka karaamada, dareenka qofnimo iyo nololeed oo tusaale ahaan markii aan anoo meel iska maraya qof aan u garto inuu Soomaali yahay aan ishaydu ku dhacdo waxay durbaba maskaxda u gudbisaa dareen igu qasba inaan isha la sii raaco haddii meel aan laga salaami karin uu joogo mar walbana uu yahay wax joogta iska ah oo ah qofkaasi inuu yahay qof Soomaali ah aan dareenkaasi inuu yahay mid aan dareemo meel kasta waa marayo. adiga marka shakhsi ahaan Axmed adiga iyo qoyskaaga ee hadda qurbaha ku nool ee aan weliba dareemayo inaad sanado badan qurbaha ku nooshihiin gurigiina marka aad joogtaan ma isdareensiisaan inaadan ahayn dad Yurubiyan ah amaba Ingiriis ah maadaama dalka Ingiriiska ku nooshihiin oo aad Soomaali tihiin. aaminay aniga ilmahayga ilaahay baa ilmaha aan aabaha u ahay waxa weeyaan hadda waxa ugu yar 16 jir baa ugu yar waa wiil gabar oo ilaahay hadiisto labaduba af Soomaaliga way akhriyaan wayna qoraan suugaantana waxbay ka yaqaaniin deegaankii ay ka soo jeedeen waliba deegaan baadiyeedkii xoolaha lagu raacay ayaan xilliga fasaxyada u diraa markii hore aniga raaci jiray laakiin hadda ayaga taga oo bartay dadka iyo deegaanka waxyaalaha xiisaha lahaa markii ugu horeysay wiilkayga aan geeyay meel bariga xeebta Hobyo ah
marka habeen baan cid ku hoyanay oo miyiga dadka waata loo soo martiyo marka waxaa la go-aansaday in neefna loo qalo marka reerkii odagii iyo habartii reerka lahaa iyo wiil yaro xoog ahaa iyo gabar yar ayaa neefka yaraa meel aan gola ah aan hor fadhin aniga wiilka yarkaahay ayay horteena soo dhigeen way bireeyeen deetna wuu rafta markii adugu hilibkii la kariyo naloo keenay ayuu inankii yaraayo wuxuu yidhi aab anu hilibka cuni maayo dee maxaa dhacay wuxuu yidhi neefka kan aabba waa la xoogay iskiis looma qalin neefka waxa afar qof baa iskugu tagtay waa la xoogay anu hilibkaa cuni maahay hilibka anagu habeenka waa cunnay asaga waagu markuu baryey ba asagii aan si kale u jarjarnay ku darin haddana wuxuu iiga sheekeeyey sanadkii dhaweyd markuu tegey in awowgay siyaaradiis oo sanadkiiba mar xoolo badan lagu qalo inuu asagu dhowr neef mas-uul ka ahaa inay maaragtay la xalaaleeyo marka aad bay u dareemaan ilaahay jannada ha siiye ayeydooda oo ayey hooyaadkooda ah oo ah dadkii hore ee soomaalida xilli ilaahay cimri dheer siiyey oo guriga saldhig u ahaydna way ka faa'iideenoo hadda waxaan nahay qoys soomaaliyeed oo markay isku yimaadaan aan guriga laga dhex maqal afaf qalaad axmed carruurta inaad af soomaaliga ku abaabisaan waaba doorkiina oo waadna dadaasheen runtii idinkoo qurbo jooga haddaad saa ugu dadaasheen aad baana idinkaga mahad celinayaa axmed adiga axmed ahaan dee qof waddankiina xasuusanayo isagoo weyn ka yimid ah halkan qurbo waaye dad kalenu ku dhex noolnahay iyo bulshooyin kale oo dhaqan kale leh ingiriisnimona dareemaya iyagu ama britishnimo hadba sida loo yiraa adiga markaa ma intaad gurigaaga joogtaad soomaalinimada dareentaa ma markaad dibadda socotaad soomaalinimada dareentaa markaad qof soomaaliya aragtaad soomaalinimada dareentaa mase waa wax mar walbaba qalbigaaga ku jiro oo ku weyn aaminay markaan qurbaha joogo oo hadda asagaaba saldhigii noqday cudurro badan oo dadka soomaalida laga helay oo aad oo dhiigga xaggiisa u badan ama sokorta ha noqoto ama dhiig karka ha noqoto ama xitaa midatan welwelka ahe familada ku badan ha noqotee saameyntooda markaan qiyaas badan anu ka qaatay soomaalinimada dareenkeedu markii qurbaha la joogo waa mid subax walba joogto ah oo weliba cara leh oo weliba naxdin leh oo weliba oohin leh sababtu waxa weeye mar walba aan gurigayga banaanka uga baxo waxaan dareemaa inaanan hadday dadka dhinacyada iga maraya ee ajnabiga ahi boorsooyinka ay wataan ama hadday xayawaan daadineen sida iyadoo kale inaysan iga aqoonin aniguna dhulka aan ku dhex lugaynayo inaanan waxba dhaamin noole dadku isha ku hayaan laakiin aan xurmo lahayn goobaha shaqada markaan tago ayadana waxaan ahay dad kooban marka laga reebo dad uun in mashiino sida kuwa hadda casriga ah lasoo wada la rabo in warshadaha looga shaqeeyo kale qof nool iskuma arka waxaan isku arkaa mashiin danta laga leeyahay ay tahay hawl ninkii dalka lahaa uu qabsan waayey ama uu ka faanay in la igu fuliyo anigu waxaan doon ha noqde qaabka marka aan la sheekaysanayo ama aan salaamayana waxaan dareemaa in si liidnimo ah oo la ila hadlo oo aan mas-uuliyada ku jirin ama aqligayga iyo aqoontayda aad uga hooseysa oo aan waxba dhaamin sida bisadaha iyo kartoonada iyo ay ugu cayaaraan marka mar walba oo qalbigaygu uu muujiyo inaan ahay nin soomaali ah wiil geel jiroon gaajadu karayn oo geeska afrika degan oo wiilkii dhoomnaa ah markaan yurub iyo qaaradahan joogo waxaan dareemaa calool xumo iyo qalbi xumo iyo niyad xumo waxaan kaloo soomaalinimada dareemaa markii ay igu qabsato matalan maalinbaa waxa nagu dhacday annagoo iyadoo qabowba ani jiro ayaan anigii nin odayahoo kaleo baabuur wadanaa waxaynu ku soo baxnay waddada baabuur dhex yaalla oo laba hablood oo soomaaliyii ay inta ka soo degeen ay kamayacuudaan banaanka waddada qabowna ku dhacayo ishoodu waxay qabatay inaynu laba nin oo soomaaliya nahay oo baabuurkan annagu aan wadano ayagoona waxbana weydiin ay aaminay soo galeen noona sheegeen in baabuurku ka hallaabay annagu ma aanan daymoon waxay ahaayeene waxaynu u hawlgalnay inaynu baabuurka kicinno oo taayirka gabdhaha ka bedelno
wuxuu ahaa markii dareenkaasi aanu sidii ay rabeen ay noqotay ayaa sida dhaqankayagu yahay ayaga baahidu way ka baxdayoo baaburkoodu waddadu u fuulay annagana lexejecladii iyo xanuunkii noo hayay uu naga ba'ayo gabdhihii waynala siman yihiin ereygii iigu naxdinta badnaa wuxuu ahaa sheekada iyadu waxay sal ka dhigtay maadaama ay gabdha marwooyin ahaayeen annaguna niman odayaal aynu ahayn ereygii annaga afartaya qof ka mida ka soo baxa wuxuu ahaa yaanaan ishalmaamayna horta aan iswarsanno yaana waa ereyga gobonimadayada iyo dadnimadayada iyo waxaan nahay dhaawacaye waxa ulajeedadu ay tahay yaa tihiin annaguna yaa nahay oo macnaheedu yahay markii baahi jirto ishayadu waxay qabataa soomaalinimo iyo isku soo hilow iyo isku baahi laakiin markii qof waliba gurihiid la fadhiisto ama nabaddu ay albaabkiisa timaado ayuu wuxuu raaraadiyaa waxaan loo baahnayn iyo yaata iyo reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel laakiin markuu ciloodo waa qof soomaaliya waxaan joogi jiray waddanka midowga sovieti waddankii la odhan jiray russia xilliyadii ugu darayd bay ahaydee nin hadda soomaalidu alxamdulillah u taqaano caanka ahayo hadda safaaradaha inuu madax ka yaalla igugu sheegay oo dadka aad u aruurin jiray oo aan ku ammaanayo ayaa subaxyada ka mid a wacayo wuxuu yidhi islaan ruushaha soo wacdayoo meesha adigu aad degan tahay meel u dhoway degan tahayoo waxay ugu tiri gabar madow oo aan u malay inay dadkiina tahay oo uur leh ilmo yarna wadata ayaa ay ka seexan waayeen eydii anigu guriga ii joogtayo gabadhana nin tagsilaha iga keeno aeroboortka laga soo qaado wax ay ku hadlaysaan anugu maaqaan waxna ma cunayso waxna ma cabayso wayna iska ooyeysaa aroor horeo mooskay ahayd oo qabowgu jiraye taxi baan qaatayoo waan u tegayo markaan albaabka ka galay gabar kursiga fadhida iyo ay ku qaylinayso oo la yaaba qofka kan iyo ilmo yaro iyo borso yaroo is ag yaalla baan u soo galayo markay isalaantay gabadhaasi waxay igu tiri waan kala daadsanahay waa bila dhammaystay aad baan u diifaysanahay marka waxaad igu raadisaa si ay cawradayda u asturaan reer hebel oo aan ku abtirsado iyo reer hebel oo hooyaday ku abtirsato si ay cawradayda u asturaan walaalo aduu nin baa tahay oo macnaha meesha reerku degan yihiin ku ogeyd miya macnaha dadka tahriibka ah mooska iska maraya ayay waxay leedahay raabtigay iyo raadeerkay dad ah la ii geeyo maadaama aan dad xaasasi joogin aniguna aan qof culus ahay haye waa run arday baa la geyn jiray ruushka arday baa joogto dad saas waagaas ma joogin dad tahriiboo badani ma joogin marka maadaama aan nin ahay cawradeedii rabtaa inay saraakiisha ciidanka iyo baa tababar loo geyn jiray waa runta dadka iyo arday rag u badan iyo waxaas marka maadaama aan nin ahay ay soomaalinimo ii garatay dhibaatana haysato waxay rabtaa waxay dareensantaha in fooli ku soo dhowdahay waa uur bay leedahay marka cid kale kuma aaminto inay arkaan cawradeeda waa run haye waxaan u sheegay inaan hooyada ay meesha tilmaanta ay sheegtay inaan anigu ahay haye waa wax lala yaabee aaminay markaas amiir ugu dambeysay aniguna waxaan arkay biyo qulqulaaya markii ugu horreysay ahayd gabar umulaysa aan arko waxay gabar islaanta markay u jeeday waxay ii wacday ambalaas markay timidna waxaa laygu xujeeyey inaan saxiixo inaan ahay ilmaha iyo gabadha issaaran ya maxaa u tahay waxaan ku iri waxaan u ahay waa walaashay hada waa kaaba wax kala dhihi kartaa saxiix baa la yidhiyo maqas baa lasoo qaato ilaa googaradii ilaa diricii ilaa jaakadii baa inta lagu jaray baa iyadoo si u dhaatay inta sariirtii bareelkayd la saaray gabadhii yaraynta dhabta la ii saaray ayaa waxay labadeeda lugood qabo adigu fooli ilaa adaa dadka u xigay nin yar baan ahaa oo dhallinyaraa qof dumara isagoo dhaqaawan oo umulaysana weligay ma arag ilmahaasi iyagoo durbaana ayay aaminay waxay ku soo duldhaceen boggayga markaasaa jaakadayda inta la iga siibay ilmihii la ii dul saaray inta mare la iga jeexjeexayo ambalaasta dhexdeedii war waxbaa idin qabsaday haye waa qiso dhaba gabadhaas hadda waxay ku nooshahay Sweden gabadhii dhabteeda ku umushana mar dhow waa lagu aroosay magaalada Stockholm gabadhii aad barigaad ka umulisaba la guursaday iminka ayaa hadda la guursaday ma sha Allah haye
shirkadaasaa ismartay qisada cajiibka waxa weeye waa xilli colaadeedkii ay soomaalidu reerka isku laysay oo jabhadaha iyo adduunyadu ay macnaha lahayd dhiiggu inuu daato aan saas weyn waa sagaashameedkii ها برقي معناه سلا heeraha ahay gabadha sidaasina dhex martay heeraha ay ka dhalatay iyo kuwa aniga aan la sheego inaan aniguna ka dhashay birtaa ka qoyano dhiigga ka daataay waa garta waddankiiba isku raadinayeen haye waddankiiba isku looynayaanoo dhiigga ay kala daadinayaan iyo idaacaduhu wararka ay ka soo warinayaan ee colaadaysanee meydka iyo qaxu isdul saaran yahay aad u badan yahay ha iyadu way ogtahay laakiin soomaalinimadii baa idin shaqaysa laakiin axmed wax yar aan kaa dhex galo bartaa iigu yara qabo berigaasaad sheegayso oo colaaddu way nagu cusbayd wixii markaa ka horreeya soomaalidu baad iyo biyo unba isku layn jirtay soomaada garan iyo labadii reer oo ood wadaaga ayaa daaqa iyo biyaha isku layn jira ama xoolo inta kala dhaca ka wicin jira laakiin dagaal inta waaweyn ee la iscunay yaa maanu markaa nugumaanu dhoweyn ama maba aanu jirin hadda iyo beriga yaad u malaynaysaa in wadaniyadu ilaan soomaalinimada iyo wadaniyadu waa laba isxambaarsan weeyaan lama kala reebi karaayo yaad u malaynaysaa inay badan tahay iminka siiba dadkeennan qurbaha joogo aniga adiguba aanu ognahay xaaladday ku sugan yihiin amina run ahaanta anu waxaan isleeyahay marka qof laga reebo oo dad kooban laga reebo oo waagaas ceelasha iyo carshiga iyo miyiga iyo meelaha iyo wax la isku dilayo xeer iyo xurmo iyo xigaalaa jiray qaab isku dileedkaasina wuxuu ahaa mid meel loo raaca leh laakiin dadku waxay ka midaysnaayeen inay cadow guud leeyihiin oo dal leeyihiin oo xaduud leeyihiin oo isku meel ka yimaadeen oo wiil geer jiroo gaajadu karin iyo gabar timatadcan ay astaan yihiin dalka iyo dadkana iyagu leeyihiin aan cidina ka sarrayn isku dadna ay yihiin ayagoo dhiig iska qubay laakiin maanta waxaa naxdin leh oo aaminahay muuqata dad badan oo weliba jaamacada ka baxay oo qorbihii arkay oo aqoon-yahanaahi inay maanta reer waliba ama jufo waliba ay sheeganayso dad ayadu ay ka asal sarrayso ama ay ka asal duwan tahay ama ay ka fahni jirtay soomaalida maanta dad waxay leeyihin carab baan nahay dad waxay leeyihin oromaan ka soo jeednaa dad waxay leeyihin tigreer baan ku leenahay qaarna waxay leeyihin xeebahan ka soo dubaalanay marka halkaas laga eego hadday baabaa tahay oo ayaan aaminsanahay sababtoo ah dignitiga sababtoo ah kalsoonida dadnimo iyo dhisnaanta inaan qofka soomaaliga laga sarrayn waagi hore waxay ahayd waxa koowaad qofka soomaaliga uu ku dhinto laakiin maanta waxaad arkaysaa dad badan oo soomaaliyaal oo meel ku shiraya oo aad uga hooseeya ama inay hoos joogo u noqdaan raba sida dawladaha dariska ah oo kale ama dadka hoose oo kale oo markii aad meel dhan oo buuxda oo dad aqoonka kala duwan ay joogaan leh aan lagu xusaynin soomaalinimada aysan muuqan astaantii calanka soomaaliya aysan muuqan waxa laga hadlaya inay tahay wax soomaaliyeed ee ay tahay wax la leeyahay soomaalida kale halkaas degan baa cadow noo ah lama lahaan jirin meel kastoo aan joogno adiga xasuusto dhulka soomaalida waxaa la odhan jiray xere edeg waxa weye edegeynta macnaha waxa weeye edegeyntaasi waxay meel wiil geel jira iyo gabar tibcan ay joogaan waxay ahayd dhul soomaaliyeed leedahay oo ay ku faanto oo ay warmaha ku difaacdo maantana waad og tahay oo haddii reerkayaga reer kale uu bawdka beerta ka jabiyo waxay leeyihiin waxaan la kaashanaynaa cadowga iyaga ayaa waxaan la kaashanaynaa dawladaha dariska sida Kenya iyo Ethiopia oo kale ayaa loo yeerayaa si ay kuwan walaalaheena inooga celiyaan halkay la hadli lahaayeen waa adiga arkay oo xaflado badan baynu sameynaayo marka madaxda iyo dadka halkaas jooga ay qodbaynayaan cadowga iyaga ayaynu ka wada hadalnay dawladda Ingiriiska ama aynu ka wada hadalnay dawladda Ethiopia ama aynu ka wada hadalnay cadowga uu sheegay waxa weeye waa beesha ceelka ay wada cabi jireen oo wiil iyo abtiisa isku hayeen aan ooyay albaabka ii xira ayay maanta taagantahay su'aasha ugu dambaysa ma u malaynaysaa soomaalinimada dadka qurbaha jooga inay kaga wanaagsan yihiin kuwii waddanka jooganiyo shalayda tan adoor iga raalli ah shalayda tan ayaan aroor hore aniga oo shaqo ka soo baxay oo ay tahay 5 iyo barkii aroornimo wada firaaqa ah
oo xaafada welista la yidhaahdo maraaya ayaa baabuur meesheediisu aad u cusubi bareeg igu hor qabta haye waxaan u qaatay dad intaan wadada ka xiray inay waxyeelayaan raba maadaama ay si qaldan wadada iigu horgooyeen say u socdaana kaa naxisay haye iyo siday baabuurka iigu horgooyeen wadada bartikeeda iigu xidheen haye anigoo naxsan ayaa waxaan dhaco wadada dib inta uga go'did daaqadaha oo ii xiraayna aad ka bartiinaysid waxaa iskala soo degay laba wiiloo yaryar oo aan ku qiyaasay inay dhowr iyo 10 sano jiraan ama 20 sano jiraan oo labaduba Soomaali tahay waxay isku bilaabeen laamiga dhexdiisii inay isdilaan banaanka isula bixeen baabuurka wadada bartikeeda weeye waa aroor hore waa qabow baa jira mid kala soo baxay inuu kala celiyo dabcan anu gees baan u baxay nimanku siday leeyihiin sidaan u lahaa haddana uga baqay inta ishaydu haysay ayaa mid dhulka la dhigay marshibiyeedka gawgiisu saaray madaxu ka dilay boolis baan wacay dad kalena midnabalaha way soo daaheen anu uma dhawaanin oo ninkiisu u dilay aad bay iga yaabisay waxa loo yimid qiyaastayda hadda sidaan qiyaasayo hadduu nool yahay waxba kuma noola inuu dhintana waa qiyaasaya dhiig aad u badan ka baxay oo laamiga dhex yaala baabuurka laamiga dhex yaala labadii kale oo dabcayna cararaan oo boolisku qabtay waa Soomaali isdishay oo London dhexdeeda isku dishay oo baabuurooda watay baqacan weyn war qaar baaba ka iska siiyay soo ma ogid qaar badan baa ka iska siiyay oo midiya isla dhacay waanaba ka iska siiyay ha waxaan kaloo aad uga calool xumaadaa aaminay oo markii aad kulli ilmana waa leedahay carruurtayda iskuulka aado carruurtayda anigu waxaa tii carruur Soomaaliyeed oo geeska Afrika degan oo muslina oo sidaas deetana waxay la kulmaan kuwa iyaga leeg oo yiraahda anagu reer hebel baana ama deegan hebel baana ama gobol hebel baana hadda guriga igu badan ilmaha yari aad mala guriga baa looga soo sheegay sababtu guri buka ayaa dhalay ilmaha qurbaha guri buka ilma u dhalana bukta u dambayn doonaan marka anigu waa ka calool xumahay laakiin ummad islaama oo ilaahay leh oo dad nool leh waa nagu jiraan oo damiir leh waa nagu jiraan waxaan isleeyahay oo ilaahay laga rajo dhigay waa soo noqonaysaa Soomaalinimadu waana la gaari doonaa kuwa aan qurbaha ku dhalana dad baa ka soo bixi doona wadaniyad leh kuwa gudaha joogana sidaan ahaan mayse khayr bay u dambeyn doonaa kaasi wuxuu ahaa Axmed Shire Falalag oo ah siyaasi Soomaaliyeed wax badan qurbaha ku noolaa xilal kala duwanna ka soo qabtay gudaha Soomaaliya oo iminka London ku nool oo qadka telefoonka iigu waramayay aniga oo jooga magaalada Birmingham barnaamijkii Soomaalinimo ee toddobaadkan waa naga intaa toddobaadyada dambe cidii danaynaysa inay ka soo qayb gasho wayna la soo xiriiri kartaa adiga islumiyo isulogay cadowgo libintaadi siiye waadigan selite leexadu ku sidatee xad ballaan cuskanaye waadigan selite leexadu ku sidatee xad ballaan cuskanaye libanteeda dunyada ruuxna laasan maaye maxaa luray naftaadii libanteeda dunyada ruuxna laasan maaye maxaa luray naftaadii guud ahaan barnaamijkanii fiidnimo ee caawa aanu idinkugu talagalnay haddii aynu nahay radio amsom oo fadhigiisu yahay magaalada Birmingham oo ah caasimada labaad ee waddanka Britain anigoo aamino muuse weheliye cadoobana aan idinla socodsiinayay waa naga intaa tan iyo intaanu mar kale idaacad tan lamida ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo